Bismillah, assalamu alaikum. Kusoo dhawaada mar kaleento iyo koorsadeeni HTML ee ku saabsaneed barashada sida loo sameeyo website-yada. Maanta waxaan qaadanaynaa cashirkeena koowaad. Shalay waxaan qaadanay hordhac. Qodobada aan cashirka koowaad maanta kusoo qaadan doono waxaa ka mid ah weli waxaan ku jirnaa rakibaadii iyo isku aadintii. waxaan rajaynaynaa cashirka xiga inay si fiican wadada u qaban doonto, laakiin maanta si kasta waxaan sameynaynaa website-ka ugu horeeyay ee computerka ku dhex sameysanaysa insha Allah waan sameynaynaa. cashirka qodobadan kusoo qaadanayna maanta waxaa waaye ama ka mid ah sida loola soo dego notepad++ inaan sameyno folder kadibna aan faylal ku dhex sameyno ama hal fayl maanta sameynaynaa HTML file baan sameynaynaa. sidoo kale waxaan sameynaynaa creating first web page. waxaan dhisaynaa ama abuuraynaa page-ka ugu horeeyay qaab dhismeedka oo maaragtay HTML simple HTML document ama HTML page structure qaab muuqaaleedka page-ka uu yeelanayo ama sida loo sameynayo. simple explanations sharaxaada calaamadaha. waxaa jiri doona calaamadaha aan isticmaali doono calaamadahaasi waxa ay yihiin iyo example explained. waxyaabahan example-ka soo qaadanayna ayagana waan sharxi doonaa waxa ay yihiin. sidoo kale waxaan baran doonaa waxa la yiraahdo HTML element waxa uu yahay. aan ku hormarno labadan qodob ee ah sida loola soo dego notepad++ iyo inaan sameyno folder kadibna aan file ku dhex sameyno. okay anigu waan haystaa kor iyo hoos laakiin adinka waa kana keyga oo ii soo degsan yahay. okay sidan plain aan ka dhigaynaa. okay waxaa kaloo jiro midka kale aan idiin sheegayo oo computerka operating systemkiisa la socdo waa kana notepad aan dhaha kan marka uu ka option yar yahay waa midkan yar. sida kan kaleento oo maaragtay uu hawlo badan yahay ama graphical badan u leeyahay kan uma lahan. marka waa notepad++ waana lacag la'aan uu ugu fiican una ka mid yahay. dabcan aan tagno sida loola soo dego just intuu baad ku qoraysaa search box-ka kadibna page-kiisa aad aadaysaa rasmiga u leeyihiin. okay downloads marka kuwana markastaba waad aragtaa last version ku baad la soo degaysaan midka ugu dambeeya marka la marayo sababtoo ah asiga ugu feature badan ama waxyaabaha ugu dambeeya leh. ani maadaama uu ii degsan yahay marka adinkooba meeshaas kasii tixraacan doono. aan soo laabto marka step-ka xigo oo ah inaan folder sameysano aan u imaano right click meeshan desktop baan ku sameysanaynaa. okay meesha leenaan dhiganaa right click markaa tiraahdo hoos new tag kor u bax folder. okay folder magaciisa HTML course aan raaciyo waxaa laga yaabaa inuu mid kale ku jiro. okay folderka waa kaasaa waxaan furaa waxaan ka dhex sameysanaa file right. okay waxaan sameynaa okay sidan uu yahay waxaan imaanaa waxaan aadaa notepad++ka asoo wax ku qor adoo wax ku qortay adoo waxba ku qorinba waad save garaysan kartaa kan dhib ma lahan. right click waxaan leeyahay save as aad leedahay save as meesha aan ku save garaynayo desktop-kan aadaa folderka HTML course 1 kii hadda aan dooranayo aan sameynayo waay. saan double click leeyahay si aan ugu dhex sameeyo faylka magaca waxaad ku qoraysaa index dhibic HTML save as type. okay
waxaad u save garaynaysaa laba qaabood ka yeelan kartaa midka ugu koreeya oo ah all types waa ka dhigan kartaa haddana waxaan ka dhiganaynaa maadaama uu yahay waxaa kaloo ka dhigan kartaa file extensionka waxa uu yahay markaasna waa ka dhigan kartaa waa html waa kan so waaba kanaba hypertext markup language okay save aan leeyahay okay markaan noo save garaysmay page-kan tago waa kana marka waa meeshaan ugu diyaarsan yahay browser Edge asoo isticmaal Microsoft Edge browser madaaran kan kale u bedelan karaa oo Chrome Google Chrome u bedelan karaa so madaaran siisoon ku dhaafi karaa aan furo markaas malahan aan furo so hadda empty way waa faaruq way waxba kuma qorno so waxaan sameynaynaa marka website-ka hadda markaas aan sidii wixii aan ku qori lahayn sidaan u sameyn lahayn hadda marka idin tusinaa waxa ugu horeeyo oo la subinaa waxay tahay waxaan qoraynaa waxa la furaa marka hore bil yar ama less than calaamadaas less than la dhaho ama angle bracket kadib waxaan ku qoraynaa doc calaamatul ajab okay doc type aad qoraysaa fartan in loo weynayo fiican doc type markay tahay okay doc type doc waxaa laga soo gaabiyey document nooca document uu yahay hoosaan keenaa bisug doc type markaa qortid space html yaryar asaga qoraysaa waadna xiraysaa calaamadii ama bishii aad furtay hoos u soo deg waxaan qoraynaa tag la yiraahdo html xir isla haddana waad xiraysaa waxaad u xiraysaa calaamadan oo la yiraahdo forward slash html-ki haddana qoraysaa waa xiran yahay okay hoosaan usoo degaa marka wixii aan qori doono intaan la rabaa marka inaan ku qorno hadduu alla idmo waxa ugu horeeya soo galaya wuxuu noqonaa cinwaanka head okay head waad xirayna isagana calaamadaas forward slash-ka tag oo ku jiro waa close tag la yiraahdaa midka kale intana open tag la yiraahdaa head okay headka waxaan soo dhaxgalayo madaxa waxyaabaha lagu qoraa waxaa kamid ah soo galayo title ama cinwaan xaf Soomaali lagu dhahay wax kastood furtid waad xiraysaa title-ka asigana waan xireynaa title okay title-ka waxaan ku qoraynaa page title-ka meesha soo galayo page title page title-ka xagga lagu qoraa headka okay headka marka waxa ka soo hoos marayo wax kasta aan qori doono waxay u dhaxeynayaan html open tag iyo html close tag dhexdooda so hadda head madaxi oo title-ka ciwaanka ah aan ku qornay so waxaan meeshan ku qorana wax la yiraahdo body tag body la dhahan fureynaa body waa xireynaa body waa waxa aad qori doontid caloosha dhameed waa meesha soo muujinayso wax kasta oo website-ka lagu qoro oo dadka meesha akhristaan marka body waxa lagu dhex qoraa waxa la yiraahdo h1 h header 1
headers iyo paragraphs iyo lagu qoraa waan baran doonaa. h1 waxaan leenahay aan xiro horto. okay, h1 aan xirno, h1 aan xirno. waxaan leenahay marka my first heading. okay, xusuusan oo yeelana noo noqonaa oo soo degno. waxaa kale oo baadhiga lagu dhex qoraa waxa la yiraahdo paragraph, waa qoraalka waaye. heading waa qoraalka cinwaankiisa, kana qoraalka waaye. asagana waxaan leenahay my first paragraph. xireenaa xirowga markastaba close tag la yiraahdaa, kan lagu xiraayo taaga xirnaashaha saasoo bana loo qoraa. okay, intaan waa base-ka ama HTML structure-ka, waa simple HTML document ama HTML page structure. qaab dhismeedkiisa intaan waaye. save ayaan leenahay. laba qaab oo save garan kartaa. control s waa taaban kartaa, control s, ama meeshaas file intaad furtid bidix sare ee kor ah, kadib waxaa leedahay save as. laakiin hadda kan kor okay, save as aan rabnaa, save kaliya ma rabno. waana save garaysnaa koraysa. waxaan leenahay kaliya control s ama save kaliya bis. save kaliya control s ama save markaan dhahno waxaan aadaynaa page-kii oo eberka ahaa oo aan sameynay. okay, wuxuu ahaa abkan. marka refresh aan ku sameynayna. marka meeshaan refresh ku sameyno fiir waxa dhici doona. marka bismillah, waa ka wixii ugu horreeyay hadda waan sameynay. so body meeshaas wax yar aan ka saxeena iyadana. okay, body in xagga soo muuqata ma ahan qoraalkaas ay ku jirto. so sababtoo ah waxaa fiiri okay, space-kaas waa hadda saxma. marka waxaan leeyahay control s aan dhahay, waan save gareeyay. okay, refresh oo ka baxay. okay, my first heading, my first paragraph. magacaaga meeshaas ku qori kartaa haddaa rabtid. meeshaan aad waxaan ku qortay haddaa rabtid magacaaga ku qori kartaa. wax alaal waxaa ku qortid meeshaas way kasoo baxayaan. maxamed aadam okay, intana maxaan dhahaa Soomaaliya. okay, muqdisho Soomaaliya. okay, control s save baan dhahay. waan soo degaa, waxaan taabanaa meeshaan refresh. markaas waxa la wixii aad meeshaas aad ku qortid meeshaan ka soo muuqanayaan. waxaa kaloo jirta iyadana title-ka meesha aan ku qornay. inta page title-ka waxay ka soo muuqanaysaa meesha u korayso ee korwaataas page title. meeshaas page title haddii aan Soomaali ku bedelo aan dhaho cinwaanka bogga way isbedelaysaa. cinwaanka bogga aan ku qoraa. cinwaanka bogga page title Soomaali baan bedelay. control s aan dhahay, waan save gareeyay ka dhigan tahay, ama file xagga tagaysa save baan leedahay. laakiin hadda active ma sababtoo control s aan ku save gareeyay. okay, waxaan aadaynaa browserkayga. browser markaan kiciyo okay, kor fiir marka ka cinwaanka bogga way isbedeshay. so waxaan sidaas falfalaad iyo isku day iyo badbedel iyo cilmiga العلم بين التلاميذ اللي marka laakiin kaliya aad tahayna العلم فيك waa marka adigu kugu dhex jira. marka inaad falfalaadid habka wax lagu tusiyo habka duwan inaad u raadaysid habka ku celceli horto marka ku fariisato ka bacdi haddana habab kaleento badbedel. tusaale cilmiga lagu sii cindiga ka dhameystiro nolosha waa sidaas.
aan ku soo noqono taxanaheena. Okay, qaybtan waan sameynay creating page waan abuurnay. maxaa hadda inoo xigo symbol HTML asigana waan sameynay nasiib wanaag alxamdulilah. qaybta hadda aan sameynayna waaye structure-ka oo HTML page-ka. Okay, marka calaamadihii aan hadda ku soo qaadana meesha sharaxaadooda. calaamadii oo hadda tusaale ahaan ugu horeysay aan ka bilownay furitaanka shayga waxaa waaye less than English lagu dhahaa ama angle brackets na waa la dhahaa. midda isla iyadoo kale laakiin dhanka kale ka imaanayso greater than la dhahaa ama angle brackets. calaamada kale oo ku xigta oo midaan oo doc type-ka document type-ka ka horeyso ee anaga calaamatul cajab afcaari waa kelmadaas kulli af Soomaali calaamada yaabka calaamada oo kelmada xataa iska carabi waaye. so af Soomaali marka waxyaabaha inaad fahamsantaan baa muhiim calaamadaasna English waxaa lagu yiraahdaa exclamation mark ama exclamation point ama bank waa la dhahaa. calaamadaha kale aan isticmaalna iyagana waxaa ka mid haddaan gadaal u laabano markaan close tag aan sameynayna tagga aan xireynay waxaan aad u isticmaalayna mar kastaba calaamadan oo forward slash-ka la dhaho. so marka calaamadaas iyadana waxaa la yiraahdaa forward slash solidus virgule wag ama waxaa kalento oo la dhahaa mathematical division symbol. calaamada loo isticmaalo xisaabta qaybinta la dhaho. xisaabta qaybinta calaamada loo isticmaalana way tahay waa isla iyadii. so marka forward slash dheh ama solidus dheh. so marka waa kaasa muhiimadda waa inaan waxa aan sameynayno waxa ay yihiin aan fahamsano ama waxa ay qabtaan. structure-kii aan soo qaadanay example-kii mid kasta marka waxa uu taagan yahay marka element kastaba. so sharaxaad kooban ku saabsan waay. the doc type HTML sadarka ugu horeeyay wixii aan ku qornay bisha aan furnay calaamad tacajabka doc type HTML-ka aan ku qornay. declaration defines that this document is HTML5 document. wuxuu caddeyn u yahay in waxaan isticmaalayna uu yahay HTML5. farshanada HTML ayaa HTML yani way badan yihiin. so farshanadii ugu dambeeyay waliba version 5 iyo wixii ka dambeeyay inuu yahay version 5 inuu ku sheegaa marka calaamadan waxay faa'iideynayso waa kaliya in version-kan isticmaalayna uu yahay version 5. tag xige aan qorno wuxuu ahaa ama elementiga xigay HTML element is the root element of an HTML page. waa root element lagu tilmaamaa waa meesha xididka waa asaaska hoose. element wuxuu yahay waan qaadan doonaa. HTML page marka la sameynayo marka waxaa root element u oo asaaska meesha xididka hoose elementiga xididka hoose u waxa waaye HTML kii aan subinayna waa aan fureyna. waxaa ku xigay head waxaa ku xigay HTML waxaa ku xigay head element. head element contains meta information about the home page. dabcan waa madaxa sare waa wixii lagu qorayo waa. title element specifies a title for the HTML page. wuxuu asigana qeexaa cinwaanka bogga waxa uu yahay. waxaana lagu soo muujiyaa which is shown in the browser's title bar or in the page tab. meesha hadda idinka tusinaya waa meesha laga arkayo hadduu tab yahay hadduu full page-ka uu yahayba meeshaasaa laga arkaa wixii title-ka lagu qoro. maxaa ku xigo body inoogu xigo. body element defines the document's body. waxa uu qeexaa jirka documentiga waa urku jirki waaye nuxurka dhamaa waa meeshii ay xogta wixii oo dadka loo soo bandhigayay meeshii lagu qorayo waa. and is a container for all the visible contents. waana containerka isku hayo dhammaan waxa uu ka kooban yahay ee la arkayo page-ka. such as heading sida yani heading, paragraph,
paragraphska qoraalada isku xiran oo iswato ala yiraahdaa images sawirada hyperlinks linkyada tables lists marka wax oo dhan wada arki doonaa wax ay yihiin iyo wax la mid ah h1 ayaa ku jiray waxaan soo qaadanay element h1 la yiraahdo defines a large heading wuxuu sheegaa asiga uu qeexa in ciwaankaas uu weyn yahay kan weyn so marka h1 h2 3 4 ila 6 way numberka ka sii dambeeyo uu ka sii yar yahay kan hore ayaa sii weyn wana ugu weyn 2 ku sii xigo yar 2 3 ku sii xigto sii yar 4 ku marka waan arki doonaa haduu alla idmo kan ugu dambeeya wuxuu ahaa p element oo u taagan asigana paragraph marka muhiim waa marka intaan ay waxay u taagan yihiin ee waxa ay qabtaan inaad fahamsan tahay muhiim ma aha inaad sida faataxa amal adusha ka xifdisid laakiin waxa muhiim ah inaad fahamsan tahay oo la jeedka ay u taagan yihiin iyo waxa ay yihiin aan qaadan marka html element waxa uu yahay qodobka ugu dambeeya inuu yahay fila an html element is defined by start tag some contents and an end tag html element waxa lagu qeexaa inuu yahay start tag marka iyo waxa uu tagaas uu ka kooban yahay some content iyo end tag marka la isku daro tusaale ahaan inta fiiri yani tag name ka meeshan lagu qoraa kadib waxa content gaas here tagas waxa uu yahay tusaale hadii inta title ay ahayd cinwaankii inta wixii ku qoraysay kadib close tag marka saddexdooda marka la isku daro open tag contentigi iyo close tag marka la isku daro ayaa waxa la isku yiraahdaa html element in qoraalkan hoos ku qorayaa waxaan sheegay kana the html element is everything from the start tag to the end tag html element waa wax kasto kasoo bilowda tagga lagu furayo kuna dhamaada ilaa iyo tagga wax ay ku dhamaadaan inta ku jirto tusaale waa kuwana marka fiir meesha hadda waxaan ku haysanaa laba html element html kuwaad waxa waa h1 oo taagan header 1 okay qaybtan ugu horeyso h1 ay ku qoran tahay bisha furan ku dhex jirto waa tag name ki waayay oo waliba open tag ka sii yahay qaybtan dhexe waa content gaasiya wixii la dhahay waa meesha ay head waxa uu tagas elementigaas ka kooban meesha uu galaayo waay kan waa tag name ki oo la soo xirayo waay close tag kan hoosana waa la mid ku celis macna badan ma sameynayso so maxaa kaloo inoo muhiimsan okay waa isla inta hadda aan sheegno waay start tag element content iyo end tag intaasoo ka kooban yahay html elementiga h1 my heading inta haddaan arkayna marka waxaa jiro inta dheeraad ku ah qodobka ugu hooseeyo br baa ku qoran okay inta waxba kuma qorno oo element content ma heno end tagna ma heno so that means marka kan waxaa loo yaqaanaa si gaar ah waa kana note some html elements have no content like the br break ayay u dhigan tahay waa markii leemanka la kala jibinayo la kala goynayo sadar cusub hoos loo dejinayo sadar kale inta laga sameynayo waay so kaasoo kale markuu arinka taggan kala isticmaalayo these elements are called empty elements al yiraahdaa waa elementyo eber ah faaruq ah sidaa darteed marka empty elementsna do not have an end tag ma lahan end tag so xogtan waxaan ka soo qaaday sourciga w3schools.com website kale yiraahdo oo ah website aad yani caan ugu ah barashada maadadan ama wixii la xiriira barashada website-ka maanta waqtiga inuu dheeraadaan filaa laakiin wax kasto faa'iido ka muhiimsan wixii hadda ka dambeeyo marka inaan sii gagaabiyaan rajeynaa wax marka la fariisanayo markasta waxay qaataan waqti ka badan waqtiga loo qorsheeyo ama waqtiga caadiga ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Mahadsanidiin dhammaan.